السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله يا عشر كيني سقالي تبنات إنه كجهل إني articles كا إيو articles كان أول شيء عندنا dative كا إيو accusative كا إيو nominative كا مرة عشر كيني سقالي تبنات إسنا وحين كجهل دونا إنهاس و article هذا إيو سيدا لو كلا فهم إيه article كا أي إنه كسو قاعدين دونا هدي الله أود اللي أقوله تاوشوا عن أو ناكسن هل كان وحين كسو قاعدين إنه وحوي وpronomen أما pronomen أو إنجليزينا لو يقانو pronouns ومقعيالدا iyo sida ay isku bedelaan markay yihiin nominative ka iyo markay yihiin accusative ka iyo markay yihiin dative ka iyo sida uu qofku u kala isticmaalayo marka halkan baynu xogaa aynu kala cadeyn doonaa sida ay kala yihiin haddaba haddii aan ku horeeyo dhinaca nominative ka waxaan soo qaadanaynaa kuwa nominative ka ah iyo macnahooda deetana waxaan ka xujin doonaa accusative ka kadibna waxaan ku dambeyn doonaa dative ka haddaba qaybta ugu horeysa ee nominative ka hadii aan soo qaato qaybta ugu horeysa ish oo macnaheedu yahay aniga ingiriisiga waxa uu dhigantaa I am ish oo macnaheedu yahay I am ingiriisiga Soomaaliga waxa noqonaysaa aniga do ingiriisiga waxa uu dhigantaa you Soomaaliga waxa noqonaysaa adiga macnaheedu waxa uu dhigantaa ingiriisiga he Soomaaliga waxa noqonaysaa isaga C-na waxa weeye ingiriisiga she baa u dhigantaa Soomaaliga waxa noqonaysaa iyada S-na waxa u dhigantaa it ingiriisiga Soomaaliga waxa noqonaysaa iyada ama isaga iya ingiriisiga kuma jirto laakiin you baa u dhigantaa laakiin you-dan waxa noqonaysaa mid jamaca oo laba qof iyo wixii ka badan baa isticmaalaysaa iya okay fiyana waxa u dhigantaa ingiriisiga we anaga weey ama inaga okay C waxa u dhigantaa ingiriisiga they oo macnaheedu yahay iyaga waa rag iyo dumar waa qof aan meesha joogin oo laakiin jamaca sida ugu dambaysaana ingiriisiga kuma jirto laakiin ingiriisiga ahaan waxa u dhigantaa you laakiin isticmaalkeedu halkan waxa uu noqonayaa maxay waxa loo isticmaalaa formalka qaybta qoraalka iyo qaybta respectiga ah ee ixtiraamka muujinaysa marka macnaheedu saasay kala noqonayaan haddii aan ku noqdo ish accusative waxa noqonaysaa mish dative kana waxa noqonaysaa miya ish mish iyo miya saasay isku bedelaysaa marka waa in qofku garanayo isbedelkeeda do-na maxay isku bedeshaa dish waa do iyo dish iyo dia waxay isku bedeshaa in dative kana waxa noqonaysaa im oo ma u dambaysa im haddii aan soo qaadano C oo inanta ama iyada ah isma bedesho accusative oo C bay ahaanaysaa marka dative la tagana waxay noqonaysaa iya oo iya macnaheedu waxa weeye iyada weeye marka ida waa in la yareeyo oo haddii aad ida weynayso waxay u ekaanaysaa halka nominative ka iya baa ku taala oo iya waa inaga waa you oo jamaca waa laba qof iyo wixii ka badan laakiin marka ida aad weynayso tan bay u ekaanaysaa marka waxa laga rabaa inaad iyada waa inaad ida yareysid si macnaheedu uu noqdo inaad sheegayso inan oo ma garanaysaa qaybta dative ka ah iya marka ida waa inaad yareysid saas ayaa muhiim ah okay haddii aan soo qaato s waxa weeye iyada ama isaga isma bedesho accusative ka waa s dative kana waxay noqonaysaa im okay marka im taasi waxay u egtahay imta xagga sare ku taala im laakiin hadhow macnaha unbaa kala duwi doona qoraalka oo iskaga ekaanayaan okay iya macnaheedu waxa weeye waa you oo plural waxa weeye dadku hortaagan ingiriisiga you marna waxa dhigantaa jamac marna hal qof oo dhigantaa laakiin tani dadku ma garanaysaa uu kala saaray iyadan waxa uu dhigantaa jamac iya side idinku waxa tihiin iya waa dadku hortaagan you people macnaha waxa weeye qofku hortaagan iya accusative waxay noqonaysaa euch dative kana waxay noqonaysaa euch ama dadka qaar waxay yiraahdaan euch ama euch okay fiya haddii aan soo qaato waa inaga waa dad meel wada jooga okay inaga accusative iyo dative kana waa iskaga mid waa uns haddii aan tusaale geliyo maxay noqonaysaa is neue bei uns isagu waa nagu cusub yahay anaga is isagu neue bei uns waa nagu cusub yahay anaga neue bei uns marka uns waxa weeye inaga weeye is neue bei uns taasoo kale sidani waxa weeye waa they
marka they waa dad naga maqan iyaga weey hebel iyo hebel macnaha shakhsiyaad kala duwan oo aan meesha joogin ama rag iyo dumar bale they. Okay, see accusative-kana waa see laakiin dative-ka waxay noqonaysaa inen marka inen waxa weeye iyaga marka ida waa in la yareeyo haddii aad ida weynayso waxay u ekaanaysaa ta hoose inen ta hoose oo inen ta hoose waxa weeye waa you oo adoo doonaya inaad tiraahdo inen dad ka maqan doonaya inaad sheegtid haddii ay inen ta hoose u ekaato qalad baa imanaya marka ida sare waa in la yareeyo marka aad u jeedo iyaga waa dad meel kala jooga hebel ama garanaysaa shakhsiyaad meesha aan joogin aad ka sheekeynaysid inen ta hoose oo you ah yeena kaaga ekaanin. Okay, marka tago hoose waa c waa formal qof waxa loo isticmaalaa respect iyo formal ka loo isticmaalaa qoraalka marka isma bedesho accusative-ka waxa weeye c qaybta dative-ka u dambeysana waa inen oo tala marka lagu leeyahay vigadas inen iska waran adigu marka inen taasi adiga weeye oo waa you vigadas inen laakiin inen waa dative weeye marka ta sare inay wakaato lama rabo sidaas baa laga rabaa inaad fahanto qoraal ahaan haddii qoraalku xabad yari ka qaldanto oo xaraf aad weyneyn lahayd aad yareysid imikaba waxaad galaysaa waxa weeye qalad baad galaysaa oo sida ugu hooseysa haddii aan yareeyo waxay u ekaanaysaa ta ka sareysa oo sida ka sareysa oo day ah tan labadan waxay u sii ekaanayaan ta ka sii sareysa sida ka sii sareysa oo iyaduna macnaheedu yahay iyada oo inantiya she u dhiganta marka midna yaani mid u ekaanay labadaas sare way isku eegyihiin oo day oo sida iyo ta iyada ah inanta sheegaysa way isku eegyihiin laakiin hadhow toole waxay ku kala duwan yihiin ficil caawiyaha ay qaadanayaan oo markaan leeyahay inanta z ist baan odhanayaa iyadu halkan ka odhanayo markaan iyaga leeyahay dad meesha ka maqan aan leeyahay sie sind iyaga oo sind bay qaadanayaan kuwaasi oo waa jamac. Okay, haddaba dative-ka iyo accusative-ka iyo nominative-ka mid walba isticmaal buu leeyahay markaan leenahay nominative waxa weeye had iyo jeer waa qofka hadalku uu ka bilaabmayo waa qofka hadalku ka imanayo ama waa qofka ficilka sameynaya nominative-ka word ay leedahay. Accusative-na waxa weeye waa the direct object of the sentence waxa weeye shayga uu hadalku ku socdo ama qofka uu hadalku ku socdo marka had iyo jeer kuwan waxa la yiraahdaa magaciyaal oo halkii magaca ay bedelaan. Dative-kuna waxa weeye tusaalahan haddii aan soo qaato tusaalahan aan uu qof wax soo iibiyo shaygii uu soo iibiyey accusative buu taagnaanayaa cidii loo iibiyeyna had iyo jeer waxay noqonaysaa dative marka tusaale haddii aan soo qaato ich liebe dich ish waxa weeye nominative liebe waa ficilkii dishna waxay noqonaysaa accusative dish. haddii aan leeyahay anigu waan jecelahay isaga waxaan odhanayaa ich liebe ihn oo ihn taasi waxay u dhigantaa isaga. haddii aan leeyahay iyada waan jecelahay ich liebe sie oo accusative bay noqonaysaa ich liebe sie waan jecelahay iyada. ish oo aniga ah liebe oo ficilkiya iyo qofkii la jeclaa oo accusative oo sie noqonaya. haddii aan leeyahay waan idin jecelahay idinka ich liebe euch macnaha waxa weeye euch ich liebe euch waxa weeye waan idin jecelahay idinka. Okay, marka saas ayaa laga rabaa in aad fahantid haddii aad doonayso aad leedahay matalan haddii qofku yiraahdo waxa ma jeceshahay waxaad oran kartaa by me nicht by me marka by waxa jirta dative-ka preposition la shaqeeya iyo preposition la shaqeeya accusative-ka kuwaas oo aad ku aragteen 10keeni 18aad marka prepositionada la shaqeeya accusative-ka iyo kuwa dative-ka la shaqeeya waa in qofku uu garanayo marka by me das ist nicht gut by me das ist nicht gut aniga aan iska hadlo aniga is eego taasi ma fiicna marka by me waxa weeye accusative bay wax noqonaysaa by me wax noqonaysaa dative bay noqonaysaa. Okay, marka kuwan oo dhan oo tusaalayaal ku jira waxa aad ku arkaysaan 10 marka muhiimaddu waxay tahay inuu qofku uu fahansan yahay sida ay u kala shaqeynayaan oo ma oran kartid ich liebe dir waxaad oranaysaa ich liebe dich. Okay, marka saas ayaa laga rabaa inaad fahansan tahay.
okay haddii aan hore ugu sii soconno had iyo jeer waxaa jira an articalo la shaqeeya dhammaan ma garanaysaa ashyaada oo dhan article baa la raaciyaa articaladuna waxaa loo kala saarayaa laba qaybood qayb la yidhaahdo ingiriisiga loo yaqaano definite article iyo qayb la yidhaahdo indefinite article marka definite article-ka had iyo jeer wuxuu sheegaa wax la isla garanayo oo shay la isla garanayo sheegaa indefinite article-kuna wuxuu sheegaa kuwa aan la isla garanayn marka kuwan marka meesha ka muuqda waxa la yiraahdaa ingiriisiga waxa lagu oranayaa definite article waxayna sheegaan wax la isla garanayo oo they iyo the iyo das wax la isla garanayo bay sheegaan ein iyo eine iyo ein kuwaasina waxay sheegaan waxaan la isla garanayn bay sheegaan sidaad ku aragteen 10-18aad okay nominative-ka haddii aan soo qaato they sida they man oo kale bay noqonaysaa oo article-kani waxa weeye nominative-ku waa kuwa nominative-ka raaca weeye sida they man iyo die Frau iyo das Auto oo kale hadii jeer kuwaasi waxay raacayaan nominative-ka markay ay sidan yihiin they waxay isku bedeshaa accusative-ka then okay dative-kana waxay noqonaysaa them waa they iyo then iyo them okay nominative-ka haddaan hoos u dago the waxay isku bedeshaa accusative waxay ahaanaysaa the oo isma bedesho laakiin dative-ka waxay noqonaysaa they sida nach der Schule oo marka uu preposition meesha soo galo nach inta dambe waxay noqonaysaa dative oo die way noqonaysaa der Schule sida gegenüber der Polizei die Polizei bay ahayd marka waxay noqonaysaa der Polizei okay die accusative-kana waa die dative-kana waxay noqonaysaa they okay das waxa weeye nominative accusative-kana waa das laakiin dative waxay noqonaysaa them nominative-ka haddii qaybta ugu hooseysa aan tago the waxa weeye waa pluralka waa jamaca accusative-kana waa the laakiin dative-ka waxay noqonaysaa then marka waxaa la rabaa in qofku intan uu qaybsan yahay oo aanay kaga qaldamaynin midna uu midka kale kaga qaldamaynin okay haddii aan qaybtan soo qaato accusative-ka then oo kale markaad leedahay then matalan den hund ama den computer waa computerkii iyo den hund aygii marka waxay noqonaysaa wax la isla garanay waxay sheegayaan waxa la isla garanay sheegayaan ingiriisigana waxa la yiraahdaa definite article marka waxay sheegaan had iyo jeer waxa la isla garanayo bay sheegaan marka they oo nominative then oo accusative them waa waxa weeye markaasi dative-ka nominative-ka the waxay noqonaysaa accusative-ka the dative-kana waxay noqonaysaa they nominative-ka das accusative-kana waa das dative-kana waxay noqonaysaa them okay nominative-ka qaybta ugu hooseysa jamaca la shaqeysa the accusative-kana waa the laakiin dative-ka waxay noqonaysaa then marka dhamaantood markaad ku aragto sentence-ka waa inaad u fahanto markay kuwan ay la socdaan in waxan ay yihiin waxa la isla garanayo markaad leedahay markaad tusaale isticmaalaysid leedahay das Auto hada gaarigaasi das Auto markaad leedahay das Auto waxa weeye waa gaari la isla sii garanayay laakiin hadda tirada ein Auto waa gaari buu noqonayaa ein Auto gaarigaasi marka gaari uu yahay la kala garan maayo marka saas bay macna ahaan ay u kala bedelan yihiin okay kuwan waxaa la yiraahdaa ingiriisiga indefinite article ama article-ada aan waxba qeexin sidaa darteed nominative-ka ein buu noqonayaa accusative-kana waa einen dative-kana wuxuu noqonayaa einem nominative-ku qaybta female-ka la shaqeysa ama fiblish-ka eine oo die bay ahayd eine accusative-kana waxay noqonaysaa eine laakiin dative-ka waxay noqonaysaa einer okay nominative-ka qaybta ugu hooseysa ein waa das ein bay noqonaysaa accusative-kana waa ein dative-kana waxay noqonaysaa einem okay waa nominative-ka qaybta ugu sareysa oo ein einen einem iyo eine iyo einer
iyo qaybta ugu hooseysa oo ah ein iyo ein. Nominative-kuna waa ein, accusative-kuna waa ein, dative-kuna waa ein. haddii aynu kasoo qaadano qaybtan accusative-ka ugu sarreysa einen, entu xagee ka timid ama entu waxay ka timid daya, waxay qaybteedan kale article-kan qaybtiisana waa ein sida dayaman iyo einman. Accusative waxay noqonaysaa den man ama einen man. marka den waxa u dambeeya en taas baalkan lagu daray sidaas ay ku noqotay einen. halkana dative-ka einem tu waxay uga timid dem bay ahayd oo daya waxay isku bedeshaa accusative-ka den, dative-kana waxay noqotaa dem. marka dem waxa u dambaysa ti halkan lagu daray. marka einerna waa saas oo kale oo diid waxay isku bedeshaa marka dative-ka la joogo daya. marka daya waxa u dambaysa ta marka halkan lagu daray. marka saas bay ku yimaadeen. waxayna sheegaan waxyaalo aan la isla garanayn. haddaan idhaahdo ein hund waa ay ka mid ah ayda. laakiin haddaan idhaahdo matalan haddaan idhaahdo tusaale ahaan der hund qaybta nominative-ka der hund waa aygii bay noqonaysaa. marka shaygaas wuxuu noqonayaa shay la isla garanayo. marka saas ay u kala duwan yihiin macna ahaan. saas baa laga rabaa inaad u fahansan tahay marka aad ku aragtid word ay ku jiraan waa inay sidaa kugu calaamadsan yihiin. sharaxaadooda oo faahfaahsana casharka 18 haddaad ku noqotid tusaalayaasha mid ka mid a waad arkaysaa macnaha sidii article-ku macnaha uu u bedelayo. okay, qaybtan waxa weeye kuwan article maaha, kuwan waxaa la yidhahdaa waa negative oo negative-ku waa laba waa kein iyo nicht. marka kein hadii jeer waxaa la isticmaalaa nomanka, nicht waxaa la isticmaalaa adjective-ka iyo verb-ka la isticmaalaa. markaad leedahay shab keine Kinder. marka kein markaad isticmaasho hadii jeer waxaa ka dambeeya wuxuu noqonayaa noman buu noqonayaa keine deetana Kinder, shab keine Kinder taas oo kale. marka waa negative. laakiin negative-ku laftiisu baa wuxuu u shaqaynayaa wuxuu isku bedelayaa sidii ma garanaysaa uu isku bedeli jiray article-ku. oo matalan daya waxaynu nidhi ein bay noqonaysaa marka indefinite article la joogo. halkana kein bay noqonaysaa waa daya iyo ein iyo kein. okay, sida kein man versteht es. cid fahantay ma jirto. kein man ninnaba qofnaba muu fahmin. kein man versteht es. marka kein wixii daya qaadan jiray kein bay qaadanayaan, wixii di qaadan jirayna keine, wixii daas qaadan jirayna maxay qaadanayaan kein oo saas isku bedelayaan. okay, accusative-ka waxaan nidhi wixii daya qaataa wuxuu noqon jiray den, mar labaadna wuxuu noqon jiray einen. halkana waxay noqonaysaa keinen. okay, dative-kana waa keinem. okay, qaybta five-lishka keine, accusative-kana waa keine isma bedesho, dative-kana waa keiner. okay, qaybta ugu hooseysa kein, accusative-kana waa kein. okay, dative-kana waa keinem. haddii aynu mid walba balkaada ka saarno maxaa soo haraya ein. qaybta accusative-kana kaada ka saar einen, qaybta dative-kana kaada ka saar einen, qaybtan hoose keine balkaada ka saar eine. tana marka laga saaro waa eine, tana marka kaada laga saaro maxay noqonaysaa einer. waxay u ekaanayaan maxay indefinite article-kii oo ka baa laga wada horreysiyay dhammaantood. waa intii sare imika aynu xagga sare ku akhriinay oo ka laga wada horreysiyay. waad fahanteen baan u malaynayaa. marka kuwan waa negative. hadii jeer negative sheega kuwan article maaha ee negative weeye. laakiin marka negative-ka isticmaalayso haddii uu shaygan aad la isticmaalayso negative-ka uu yahay accusative oo uu daya qaato dee waa inaad keinen tirahdid. hadduu shaygaasi yahay mid dii qaatana accusative-ka ahi dee waa inaad keinen tirahdid. hadduu shayga aad la isticmaalaysid uu das hore u qaadan jirayna dee waa inaad kein tirahdid. marka saas baad u isticmaalaysaa. waxaan u malaynayaa inaad si fiican u fahanteen. markaad article-ka uu qof waliba uu xifdiyo sida ay isku bedelayaan article-ka uu qof waliba xifdiyo waxaa fududaanaysa
inuu qofku fahmo word kasta waxa ay qaadanayso. casharkeena maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa. intaynu ku kulmi doono cashar noocan oo kale ah, waxaan kaga teginaa dhammaantayba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa anigoo Saxardiid SMS ah oo halkan idinka soo gudbinaya casharkan maanta. haddaba waxaa mararka qaarkood dhici karta in kelmadaha qaar oo uu galo qaladaad yar uu galo. haddiiba aad aragtid kelmad isbedeshay oo qalad ah, fadlan taasi waxa ay ku timid cilad marka videoga la samaynayo ah. haddaba waxaa ku soo qori kartaa qaybta comment-ka. waxaa dhici karta kelmadaha qaarkood Soomaali inay xitaa aad fahmi weydo, waayo dadku waxay ku hadlaan Soomaaliga waa lahjad baa jirta. marka lahjadda haddii xitaa aad fahmi weydo, Soomaaliga laftiisa marka qaarkood waa la isweydiin karaa. marka waxaa muhiimadu tahay in la fahmo shayga la soo gudbinayo. marka waa ku mahadsantihiin sida aad la socotaan. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah iyo casharka inoo xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.